Kemal oo maskaxdiisu meel kale ku mashquulsan tahay. Waxa uu mar walba dib u xusuusanayaa hadalladii ugu dambeeyey ee Nihan, isaga oo isku dayaya inuu fahmo runta ka dambaysa erayadeeda. Dhanka kale, Nihan waxay ku fadhidaa qolkeeda, telefoon gacanta ku haysa, qalbigeeduna wuxuu doonayaa inuu waco Kemal, laakiin cabsi ayaa ka celinaysa. Aamusnaanteedu ma aha deganaansho, waa culays iyo walbahaar. Emir isaguna wuu daawanayaa wax kasta si taxadar leh ayuu u dareemayaa in xiriirka Kemal iyo Nihan uu mar kale soo noolaanayo. Bannaanka wuxuu u muuqdaa mid degan, laakiin gudaha waxaa ka buuxa hinaase iyo rabitaan xakamayn. Tani hadda ma aha jacayl keliya, waa dagaal dareen iyo sir ah. Kemal wuxuu dhex socdaa waddo mashquul badan, laakiin qaylada magaalada ma gaarayso maskaxdiisa. Fikiradiisa ayaa ka xoog badan wax kasta. Xusuusta Nihan waxay u muuqataa sheeko aan weligeed dhammaanayn. Wuxuu ka shakiyaa runteeda, laakiin qalbigiisu weli wuu difaacayaa. Nihan ugu dambayn waxay heshaa geesinimo ay ku wacdo, laakiin ka hor inta uusan wicitaanku dhicin, way joojisaa. Gacmaheeda ayaa gariiraya. Emir wuxuu dareemayaa isbeddelka, wuxuuna bilaabaa su'aalo jilicsan oo qoto dheer. Codkiisu waa degan, laakiin indhihiisu waa fiiqan yihiin. Nihan waxay si taxadar leh u doorataa erayadeeda, maxaa yeelay qalad yar wuxuu burburin karaa wax walba. Nolosheedu waxay noqotay xabsi, halkaas oo xitaa hal wicitaan uu noqon. Kemal wuxuu gaarayaa shaqadiisa isaga oo isku dayaya inuu naftiisa mashquuliyo, laakiin ma suurtagasho. Fikirka Nihan kama baxayo. Saaxiibkiis ayaa isku dayaya inuu la hadlo si uu u dejiyo, laakiin Kemal jawaab yar ayuu bixiyaa. Maskaxdiisu meel kale ayay joogtaa. Dhanka kale, Emir wuxuu bilaabaa inuu si qarsoodi ah ula socdo dhaqdhaqaaqyada Kemal. Shaki keliya ma ahan hadda, waa qorshe soconaya. Nihan cadaadis ayaa ku kordhaya. Waxay istaagtaa muraayadda hortooda, iyada oo eegaysa nafteeda sidii qof aan is-aqoonsan. Noloshii hore iyo mida hadda ay ku jirto farqi weyn ayaa u dhexeeya. Qalbigeedu wuu culus yahay. Waxay dareemaysaa in ay si tartiib ah u luminayso nafteeda. Xiisaddu way sii kordhaysaa, waxaana muuqata in wax weyn soo socdaan. Kemal wuxuu helaa xog lama filaan ah oo tilmaamaysa siraha Emir. Arrintani waxay ku dhalisaa go'aan adag inuusan ka laaban runta. Tani hadda ma aha jacayl keliya, waa raadinta xaqiiqo qarsoon. Emir isaguna wuxuu la kulmaa qof ganacsi, laakiin hadalkoodu ma aha ganacsi oo keliya. Waxaa ku dhex jira hanjabaad iyo awood la isku muujinayo. Emir wuxuu muujinayaa inuu yahay nin wax walba xakameeya. Nihan guriga ayay fadhidaa, laakiin maskaxdeedu waa buuq. Waxay xusuusanaysaa noloshii ay la lahayd Kemal, waxayna barbardhigaysaa tan ay hadda ku jirto. Qalbigeedu wuu kala jaban yahay. Waxay ku dhex jirtaa laba doorasho oo adag, mid qalbigeeda ah iyo mid qasb ah. Xiisaddu waxay gaaraysaa heer sare. Kemal wuxuu raacaa xogtii uu helay, isaga oo galay xaalad khatar ah, laakiin uu arko mid lama huraan ah. Wuxuu dareemayaa in runta Emir ay wax walba beddeli karto. Tallaabo kasta oo uu qaado waxay sii xoojinaysaa go'aankiisa. Emir wuxuu dareemayaa in wax isbeddelayaan. Wuxuu og yahay in Kemal uusan mar dambe ahayn qof la iska iloobi karo. Nihan sidoo kale waxay dareemaysaa culayskaas, inkastoo aysan ogayn faahfaahinta. Walwalkeedu wuu kordhaa. Xiriirka qarsoon ee u dhexeeya iyada iyo Kemal wuu sii xoogaysanayaa, xitaa iyaga oo aan wada hadlin. Tani waxay abuuraysaa xiisad aad u xoog badan. Daqiiqaddu waxay ku dhammaanaysaa dareen culus, wax walba waxay u socdaan meel halis ah, mana jirto cid ka baxsan karta waxa soo socda. Kemal wuxuu sii dhex gelayaa raadinta xogta, qalbigiisana waxaa ka buuxa dareen isku dhafan, jacayl, shaki, iyo caro si tartiib ah u soo baxaysa. Wuxuu dareemayaa in waxa uu ogaanayo aysan ahayn wax yar, balse ay yihiin wax burburin kara nolosho badan. Dhanka kale, Emir wuxuu bilaabaa inuu si dhow ula socdo dadka ku hareeraysan Kemal, isaga oo adeegsanaya awooddiisa si uu u xakameeyo xog kasta oo soo baxda. Nihan waxay dareemaysaa culays sii kordhaya, iyadoo dareenkaas uu noqday mid aan la qarin karin. Waxay isku dayaysaa inay iska dhigto mid caadi ah, laakiin gudaha waxaa ka socda dagaal aan dhammaanayn. Waxay og tahay in wax qarsoon aysan weligood qarsoomi karin. Daqiiqadan waxay muujinaysaa in dhammaan jilayaasha ay ku socdaan waddo aan dib looga noqon karin. Kemal wuxuu la kulmaa qof siinaya xog dheeraad ah, laakiin xogtaas waxay ka sii dhigaysaa xaaladda mid adag oo qoto dheer. Wuxuu bilaabaa inuu isku xiro dhacdooyin hore oo uu horay u iska indho tiray. Qalbigiisa waxaa ku soo baxaya dareen ah in Nihan ay wax ka qarinayso, laakiin weli ma doonayo inuu si buuxda u aamino taas. Dhanka kale, Nihan waxay dareemaysaa in Emir uu bilaabay inuu wax ka shaki qabo. Indhihiisa iyo dhaqankiisa ayaa isbeddelaya.
su'aalihiisu waxay noqdaan kuwo si qoto dheer u gala qalbigeeda. Waxay noqotaa mid feejigan, hadal walbana si taxadar leh u miisaanta. Xiisaddu waxay noqotaa mid si tartiib ah u qarxaysa. Qof walba wuxuu dareemayaa wax soo socda, laakiin cidna ma garanayso goorta uu qarxi doono. Kemal wuxuu gaarayaa meel uu u arko inay tahay furaha runta. Wuxuu bilaabaa inuu fahmo in Emir uusan ahayn qof caadi ah, balse uu leeyahay dhinac mugdi ah oo qarsoon. Dareenkiisu wuxuu isu beddelaa go'aan adag. Wuxuu og yahay in uu galay ciyaar halis ah. Dhanka kale, Emir wuxuu bilaabaa inuu cadaadis saaro Nihan si uu ogaado waxa ay qarinayso. Codkiisu waa degan, laakiin hadalladiisa waxay leeyihiin culays. Nihan waxay isku dayaysaa inay iska ilaaliso runta, laakiin indhaheeda ayaa bixinaya calaamado. Qalbigeedu wuu gariirayaa. Waxay dareemaysaa in ay si tartiib ah ugu dhowaanayso meel aysan ka baxsan karin. Daqiiqadan waxay si cad u muujinaysaa dagaalka maskaxeed ee u dhexeeya dhammaan jilayaasha. Kemal wuxuu bilaabaa inuu xaqiijiyo tuhunkiisa, tallaabo kasta oo uu qaadana waxay soo bandhigaysaa qayb ka mid ah runta uu raadinayo. Wuxuu noqdaa mid ka feejigan qof kasta oo ku hareeraysan. Kalsoonidiisii hore waxay isu beddeshaa taxadar. Dhanka kale, Nihan waxay la kulantaa wakhti ay keligeed tahay, halkaas oo ay si buuxda ula kulanto dareenkeeda. Waxay xasuusataa jacaylkii hore ee Kemal iyo sida uu uga duwanaa nolosha ay hadda ku jirto. Ilmo ayaa ku soo istaagta indhaheeda, laakiin way iska celisaa. Emir wuxuu sii xoojinayaa xakamayntiisa, isagoo doonaya inuu hubiyo in wax walba ay gacantiisa ku jiraan. Xiisadda waxay noqotaa mid culus oo neefsashada adkaynaysa. Wax walba waxay u muuqdaan inay ku sii socdaan burbur. Kemal wuxuu gaarayaa heer uu go'aan ka gaaro inuusan dib u laaban. Wuxuu og yahay in runta uu raadinayo ay noqon karto mid xanuun badan, laakiin wuxuu diyaar u yahay inuu wajaho. Tani waxay calaamad u tahay isbeddel weyn oo ku yimid shakhsiyadiisa. Dhanka kale, Nihan waxay dareemaysaa in wakhtigu sii yaraanayo. Waxay og tahay in aysan sii wadi karin qarinta runta muddo dheer. Qalbigeedu wuxuu ku jiraa jahawareer, iyada oo aan garanayn waxa saxda ah. Emir wuxuu dareemayaa in uu gacanta ku hayo xaaladda, laakiin hoos waxaa ka socda wax uusan si buuxda u fahmin. Daqiiqadan waxay ku dhammaanaysaa dareen culus oo ah in wax weyn uu dhow yahay, wax walba beddeli doona, oo aan cidna ka badbaadi doonin. Kemal wuxuu bilaabaa inuu isku xiro dhammaan xogtii uu helay, isaga oo si tartiib ah u fahmaya sawirka weyn ee qarsoon. Qalbigiisa waxaa ku soo kordhaya shaki xooggan oo ku saabsan Emir iyo su'aalo badan oo ku saabsan Nihan. Wuxuu dareemayaa in wax walba aysan u ekaan sida ay u muuqdaan. Dhanka kale, Nihan waxay isku dayaysaa inay iska ilaaliso Emir, laakiin ma fududa. Emir wuxuu sii kordhinayaa feejignaantiisa, isaga oo la socda dhaqdhaqaaq kasta oo ay samayso. Indhihiisa waxaa ka muuqda kalsooni, laakiin sidoo kale waxaa ku jira shaki qarsoon. Nihan waxay dareemaysaa cadaadis xooggan, iyadoo og in khalad yar uu sababi karo burbur weyn. Daqiiqadan waxay muujinaysaa sida runta ay si tartiib ah u soo ifbaxayso, iyadoo qof walba uu ku sii dhowaanayo xaqiiq aan laga baxsan karin. Kemal wuxuu gaarayaa meel uu si toos ah ula kulmo caddayn kale oo muujinaysa dhinaca qarsoon ee Emir. Arrintani waxay ku abuurtaa caro gudaha ah, laakiin wuxuu isku dayaa inuu xakameeyo si uusan u samayn go'aan degdeg ah. Wuxuu og yahay in tallaabo kasta ay tahay mid muhiim ah. Dhanka kale, Nihan waxay la kulantaa Emir xaalad xiisad leh. Emir wuxuu bilaabaa inuu si toos ah u weydiiyo su'aalo adag, isagoo doonaya inuu ogaado waxa ay qarinayso. Codkiisu waa degan, laakiin ereyadiisu waa culus yihiin. Nihan waxay isku dayaysaa inay iska difaacdo, laakiin qalbigeeda ayaa si cad u muujinaya cabsi. Daqiiqadan waxay muujinaysaa iska horimaad maskaxeed oo sii xoogaysanaya.